السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba asxaabta hawada naga daawanaysay halkan waa Arabsiya News qodobada wararka caalamka ah oo idinku haynana waxaa kamid ah maxkamadda dambiyada caalamka ICC oo bilowday dhageysiga dacwad uu Trump ugu digay in ay qaado afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka oo amartay diyaarinta qodobada xilka qaadista madaxweyne Trump xisbigii yaraa ee Dr. Abiy Ahmed oo mucaaradad adag kala kulmay isbahaysiga cusub ee Tigreega TPLF tawdiyaal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idinku haynaa wararka caalamka والله هدي أذكر صدتها channel Arabsiya News subscribe صار si mar walba warka waanu soo gelino oo ku soo gaaro maxkamadda dambiyada caalamka ee ICC ayaa bilowday dhageysiga dacwad uu Trump ugu digay in ay qaado maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka adduunka ICC ayaa bilowday 3 maalmood oo dhageysiga dacwad uu madaxweyne Trump hore maxkamadda ugu digay in ay qaado dambiyo dagaal oo Mareykanka ka sameeyay dalka Afghanistan garsoorayaasha maxkamadda ayaa diiday bishii Abriil ee sanadkan codsi ay u gudbisay dacwad soo oogaha guud ee maxkamadda ICC haweeneydan ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameeyo suurtagalnimada tacaddi bini'aadanimo oo militariga Mareykanka iyo kuwa Afghanistan ay ka geysteen intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2004 garsoorayaasha ayaa maalintii Arbacada ee shalay ahayd u ogolaaday qareenada in baaritaan lagu sameeyo dambiyada Mareykanka oo hore ay u diideen qareenka lagu magacaabo Virgil Gaynor ayaa sheegtay in maalin taariikhi ah ay tahay in lagala xisaabtamo Mareykanka dambiyada uu galay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa amartay diyaarinta qodobada xilka qaadista madaxweyne Trump afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku amartay hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga in ay gudagalaan qodobada xilka xayuubista madaxweyne Trump iyadoo shaaca ka qaaday in uu ku xadgudbay awoodii xafiiskiisa Pelosi ayaa sheegtay in madaxweyne Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu meel ku xoray habdhaqankii caadiga ahaa ee madaxweynenimo kuna xadgudbay waajibkii uu ku dhaartay ee ilaalinta dastuurka Mareykanka waxay ku eedeysay inuu Ukraine weydiistay in ay baaritaan ku samayso mid ka mid murashaxiinta dimuqraadiga ee doonaya in ay kula loolamaan doorashada 2020 kaasi oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden si ay isagu taasi u caawiso inuu ku adkaado xaqiiqooyinka lama diidi karo ayay tiri Pelosi madaxweynaha wuxuu ku xadgudbay awoodiisa si danihiisa siyaasadeed ee shakhsiga ah uu uga hormariyo amnigii qaranka Pelosi ayaa ku amartay General Lander oo ah gudoomiyaha gudida cadaaladda ee aqalka wakiilada halkaas oo Arbacadii ay ka bilaabmatay dhageysiga xilka xayuubinta iyo gudoonka dimuqraadiga in ay diyaariyaan qodobada xilka xayuubinta Pelosi ayaa ku amartay General Lander oo ah gudoomiyaha gudida cadaaladda ee aqalka wakiilada halkaas oo Arbacadii ay ka bilaabmatay dhageysiga xilka xayuubinta iyo gudoonka dimuqraadiga inay diyaariyaan qodobada xilka xayuubinta inkastoo ambulance aysan waqti qaban haddana aqalka wakiilada oo ay maamulaan dimuqraadiga ayaa u codayn kara maamuuska xubinnimada Trump ka hor ciida Christmaska ee dhamaadka bishan dowladda Mareykanka oo shaacisay in ay qabatay hub Iiraan ay farsamaysay oo lagu waday Xuutiyiinta Yemen مسؤولين كترسن دولة أمريكا ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibtooda dagaalka ee ku sugan gacanka cadmeed uu qabtay shixnad kantaalaha Iiraan ah oo loo siday dagaalyahanada Yemen mas'uuliyiinta Mareykanku waxay sheegeen inay tahay markii koowaad ee shixnad kantaalada noocaas ah la qabto iyaga oo loo sii wado dhanka falaagada ka dagaalanta Yemen hubkan la qabtay ayaa waxa siday doonyar waxaana qabtay ciidamada badda ee Mareykanka ee halka ku sugan sida uu khamiista maanta baahiyay wargeyska The National war kale oo ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa lagu xaqiijiyay in maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay qabteen kantaalo casri ah oo loo waday Yemen baaritaano lagu sameeyayna la ogaaday in kantaalada asalkooda hore inay u farsamaysay Iiraan warku wuxuu intaa ku darayaa in ilaa hadda baaritaan lagu wado kantaaladaasi ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in shaqaalihii doonta lagu waday hubka ay ku wareejiyeen ciidamada badda ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen Iiraan ayaa taageerta kooxaha Xuutiyiinta ee dagaalka ka wada dalka Yemen isla markaana weerarada ku qaada boqortooyada Sacuudiga halka aad nagala socotaan waa Arabsiya News fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Arabsiya News ha ka ilaawin in aad subscribe saarto si aad mar walba ula socoto wararka aanu soo gelino xisbigii yaraa ee Dr. Abiy Ahmed ayaa mucaaradad adag kala kulmay isbahaysiga cusub ee Tigreega
ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano TPLF. Xisbi isbahaysi ah oo ka kooban 50 xisbi oo ay ku jirto jabhadii qowmiyadda Tigreega ee asal ahaan iska lahayd xisbigii weynaa ee la oran jiray jabhadii Tigreega ee jabhadda xoreynta. Marka magaceeda la soo gaabiyo TPLF ayaa xisbiga cusub ee uu samaystay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed PP ku tilmaamay mid sharci darro ah. kooxda TPLF waxay hore ugu qayb ahayd isbahaysiga xukunka Ethiopia muddo dheerna soo ahayd, balse way diiday in ay ku biirto xisbigan cusub ee uu samaystay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed PP. isbahaysigan cusub ee TPLF ee hogaaminayo ee kulmiyey xisbiyada kontonka qowmiyadood ee reer Ethiopia ayaa la dhisay kadib markii ay ku shireen magaalada caasimada u ah gobolka Tigray ee Mekele. waxaana isbahaysigan cusub ka digay in Ethiopia ay qarka u saaran tahay kala qoqob. bishii la soo dhaafay Mr. Abiy Ahmed wuxuu ku dhaqaaqay talaabada uu ku samaystay xisbigan PP isaga oo ku tilmaamay talaabadaasi mid muhiim oo himilo dimuqraadiyadeed u horseedaysa Ethiopia, balse TPLF oo matalaysa qowmiyadda Tigray ayaa diiday in ay ka mid noqoto xisbigaas, waxaanay tani hordhac u tahay dhibaatooyinka haysata ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed ayaa wajahaya tartankiisii ugu horeeyay ee dhinaca doorashada ah sanadka soo socda marka hore loo qaado aragtidiisa dimuqraadiyadeed ka hirgasha waddan muddo dheer gacan bir loogu talin jiray, maantana qaadaya tubta axsaab tiro badan doorashooyin dimuqraadi ah, iyada oo xusid mudan tahay in dhaqanka iyo afkaba dadkiisu ay ku kala duwan yihiin. si kastaba ha ahaatee xisbiga Dr. Abiy Ahmed ee PP ayaa ah xisbi curdin ah oo la kowsaday mucaaradad kaga imanaysa xisbiga guunka ah, ilaa haddana aan la diiwaangelin, baahi weynna u qaba in laga diiwaangeliyo guddida doorashada. daawadayaal, intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa qodobadii wararka caalamka ugu door korona. warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Farxaan Maxamed Cali Farxaan Fantastiga, halka aad ka daawanaysiinna waa Arabsiya News. intaan warka xiga aan dib hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.